jeelka Hargeysa ku xidhan inaan iyo aabihii aan reer Soomaaliland ahayn oo sheekhaala ninkaas oo ilmo uu dhalay oo baxsaday uu geystay dhagar oo loo hayo inaan ay walaaliyiin inanka iyo aabihii ayuu gacanta ku hayay waa hawshii ugu dambeysay ee uu gacanta ku hayay ee uu igala hadlay ee aan u ballanay weey ilaahay idankii dadaalka waan u sahay qaadanayaa waan galayaa هذه عبد السلام وليد عين عبد السلام هي تولكين برد الله يسلمك حبس Hargeysa maanta laga soo daayay alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay xurriyadana maadaama helayna loo celiyay dawladda hoosana way mahadnaqaynaa farxad weyn oo ah inaanu halkan ka aanba bixinayno Shakuul Axmed Umar iyo Cabdisalaam Shakuul Axmed waa inaan iyo aabihii oo kale sidoo ka warqabtaan muddo dheer jeerka Hargeysa ku jiray arintaana ay dadaal weyn ka galeen Allah ha u naxariistay xildhibaan Giire iyo maayarka caasimada iyo mas'uuliyiin kale oo qaranka runtii oo ay kamid yihiin mas'uuliyiinta maxkamadaha iyo xeerlaalinta garyaqaankii iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda hoose ah runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inay xorriyadooda dib u helaan inay ku nasteen waddankoogii labaad inay imikana u ambaxayaan waddankoogii hooyo iyagoo xor ah halkana waxaan ku runtii aan u sameynaa amba bixin si ay markaa ay nabad qab ugu gaaraan insha Allah ta'ala waddankoogii waan u ducaynaynaa Shakuul iyo Cabdisalaam bal labadaba Allah ha idin nabad geliyo khayrna waan idin rajaynaynaa idin koon nabada insha Allah